shacabka Soomaaliyeed ay qayb weyn ka yihiin afartan da'da in laga dhigo aqalka shacabka aqalka sarena 45 laga dhigo iyadana mudanayaal ayaa soo jeediyey isla fakradaas oo ay shardi tahay in qofka musharaxa ahi uu cod bixiye u diiwaan gashan yahay waxaa la soo jeediyey in meesha laga saaro oo aanu shardi laga dhigin iyadana si fiican aan loo doodgareeyey fakrada koowaad ee isla qodobkaas in meesha laga saaro waayo aragnimo u dhikanta khasabna laga dhigo qofku inuu waxbarasho heer jaamacadeed leeyahay oo waagi hore oo u dhikanta ama waxbarasho waayo aragnimo u dhikanta waa shuruudihii xildhibaanka qofka noqonaya marka waayo aragnimadaas in waxbarasho lagu xiro inuu heer jaamacadeed gaarsiisan yahay iyadana waa la soo jeediyey fakrada isla fakrada koobaad xarafka G sifooyinka daacadnimo iyo amaano ayagana in meesha laga saaro maadaama halbeegaas uu halbeegoodu adag yahay qofku inuu daacad yahay ama amaano leeyahay oo laga dhaafo shuruudaha kaleeto loo dhaafo isla fakradaas xarafka H in meesha laga saaro inuu dalka deganaa 2 sano oo qurba joogta aan lagu khasbin inay musharaxiinta fursad la siiyo ay waqti hore may wala soo jeediyay anigu soo jeedimihii doodii un baan idin rikaab garayna may waa araf afkaarihii jiray waaye laakiin marka dambe dee qodobka 84aad sababaha qodobka 84aad sababaha lagu luminayo xubinimada baarlamaanka waxaa aad loo dul istaagay fakrada koobaad xarafka F la xiriirta aqbalaad xil kale oo dawladeed in lagu lumin karo xubinimada baarlamaanka dood aad ayaa laga galay laakiin waxaan rabaa inaan xasuusiyo horta dastuurka hore professional constitutionka hadda aan haysano ma reebayo mana waajib yeelayo in xildhibaanku uu wuxuu ogol yahay kaliya inuu xil wasiir qaban karo laakiin golaha wasiirada in la soo galo uma xirna baarlamaanka uma xirna dad kalena waa soo gali karaan marka dastuurka hore waa ka aamusnaa laakiin nuqulka hadda idin hor yaala oo oo la xiriirta qodobka 84aad fakradiisa koobaad xarafka F dastuur marka xildhibaano badan ayaa taageeray soo jeedinta inaanu xildhibaanku xil kale dawladeed qaban iyagoo dooda ku saleeyay inay mabaadi'da guud ee korjoogteynta baarlamaanka inay wax u dhimi karto oo ay halis ku tahay baarlamaanka waajibaadkiisa koobaad inuu guto waxaa sidoo kale dooda mudanayaasha ku jirtay in hanaanka baarlamaaniga ah ee axsaabta ku dhisan uu lagama maarmaanka dhigayo in xisbiga talada dalka ku guuleysta inuu dalka xukumo oo aanu xisbi talada haya markii axsaab iyo parliamentary system lagu shaqeeyo waxaa meesha ka baxaysa in xisbigu inuu talada asaga haye inuu dalka xukumo ayaa imaanaysa xisbiguna talada baarlamaanka uu kula guuleystay si kale uguma guuleysan marka labada afkaaraha korjoogteynta baarlamaanku inuu xukuumadda korjoogteeyo na dhinacay ka jirtay dhinaca kalena waxaa ka jirtay nidaamka baarlamaaniga ee axsaabta ku dhisan in xukuumaddu baarlamaanka ka soo dhismato inay laga maarmaan noqon karto fakrada labaad ee isla qodobka 84aad ee la xiriirta xilka xayuubinta xildhibaanada labada aqal oo aan meesha ku cadeyn in lagu cadeeyo inay two-third tahay marka xildhibaan laga qaadayo xilka markuu sababaha kale oo ku sifoobo oo meesha ku qoran waxay u baahan tahay baarlamaanku inuu aqlabiyad ku ansixiyo marka aqlabiyadaas meesha kuma cadeyn laakiin waxaa la soo jeediyey inay noqoto two-third midii xilka markii oo tallaabadaas la qaadayo qodobka 84aad ee la xiriira dhaarta xubnaha labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed fakrada koobaad waxaa la soo jeediyey in la muujiyo cidda dhaarinaysa haddii gudoomiyaha maxkamadda sare la waayo taas oo noqonaysa in gudoomiyaha maxkamadda dastuurka lagu kabo
oo haddii mid maqan yahay midka kale uu dhaarta mudanayaasha uu maamulo. waxaa kaloo la soo jeediyey in dhaartii hore ay yaro sahlanayd ayna ka yaro koobnayd. iyadana mudanayaal badan ayaa ka hadlay, inkastoo dhaarta hadda meesha ku qoranna mudanayaal badan ay bogaadiyeen oo laakiin soo jeedintaas waa jirta. qodobka 87 la xiriira doorasho xilligeedii laga soo hormariyey, xildhibaanada guud ahaan waa ka hor yimaadeen qodobkan, waxaana la xusay inay laga maarmaan tahay in la caddeeyo duruufaha ay ku imaan karto iyo cidda go-aankeeda leh. in la caddeeyo doorasho markay xilligeeda ka soo hormarayso, in la caddeeyo sida ay ku dhici karto. haddii xisbiga talada haya uu ku guul dareysto, waxay noqon kartaa marka duruufaha ay ku dhici karto, waxay noqon kartaa in haddii xisbiga talada haya uu ku guul dareysto inuu meel marsado ajandaha miisaaniyadda, xeerarka uu ku fulinayo ahdaaftiisa ama ajandayaashiisa sharci dejin ama siyaasadeed markuu labada aqal marsiisan waayo kale, inuu ama xisbi xulufo ku jooga, coalition ku jooga, ama talada haya ha ahaatee, haddii xisbiga markaa talada jooga oo dalka hogaaminaya uu baarlamaanka ka fushan waayo ajandayaashiisa, waxay noqon kartaa waxyaabaha sababi karaa doorasho xilligeedii laga soo hormariyey. isla markaana in lagu adkeeyo in xisbiga dalka hogaaminaya ay tahay inuu axsaabta kale u soo jeediyo oo aanu keligiis go-aan gaarin, aqlabiyad lagu meel mariyana lagu xiro, maadaama doorasho waqtigeedii laga soo hormarinayo ay tahay. marka waxyaabahaasaa xildhibaanadu ka hadleen in lagu adkeeyo, annaguna noodkaas waa qaadanay. waxaa kaloo la sheegay in sanadka u dambeeya oo ah sanadka shanaad lagu koobo oo aan doorasho xilligeeda laga soo hormariyey aanay iska fidsanaan, iyadana aadaa loo sheegay. shuruudaha guddoonka, qodobka 9aad ee shuruudaha guddoonka fakradiisa koowaad xarafka ba oo ah in musharaxa guddoonka uu jiro ugu yaraan 35 sano, waxaa la soo jeediyey in 40 la gaarsiiyo. fakrada labaad ee isla qodobka 9aad ee la xiriirta in guddoonku ka tanaasulo xisbi siyaasadeed haddii uu ka tirsan yahay, iyadana waa la soo jeediyey, iyadoo sidoo kale la sheegay in guddoonku u baahan karo taageero siyaasadeed maadaama baarlamaanku axsaab yahay oo markaas aan loo baahnayn inuu xisbi ka baxo. waxaa sidoo kale la soo jeediyey in dhexdhexaadnimadiisa ay muhiim tahay oo markaas inuu xisbi ka tirsan yahay ay khatarteeda leedahay. marka labada afkaarood oo xisbiga waa u baahan yahay iyo dhexdhexaadnimadiisa ayay wax u dhibaysaa, labadaba waa la sheegay, aadaan looga dooday. doorashooyinka guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed, qodobka 91aad fakradiisa labaad xarafka a inaan 2/3 ama laba dalool lagu xirin haddii laba musharax tartamayaan, inaan laba dalool lagu xirin maadaama dadka tartamaya ay laba qof keliya yihiin oo codku haldheerid noqdo wareegga koobaad. waa haddii dadku tartamaya ay laba keliya yihiin. senator cabdixakiin aada ugu tiiqsaday oo aan u malaynayo inuu waayo aragnimo gaar u leeyahay. qodobka 92aad xilwaayidda guddoonka fakradiisa 3aad ee la xiriirta in guddoonka xilka looga qaadayo laba dalool, 3 dalool 2 dalool, waxaa la soo jeediyey in qodobka 91aad oo la xiriira doorashada simple majority-ga ama aqlabiyada lagu xiro, oo haddii marka koowaadba guddoonka ay tahay in lagu doorto wareegga koobaad hadduu simple majority ku imaan karo, hadhowna xilka qaadistu ay siduu hadda ku yimaado inuu ku baxo, oo qodobka 91aad iyo qodobka 9aad 91aad iyo 92aad la isla akhriyo. qodobka 95aad ee guddiga adeega baarlamaanka fakrada koowaad oo u dhigan waxaa jiraya in laga dhigo waa inuu jiraa oo la adkeeyo, oo guddiga baarlamaanka adeega baarlamaanka aanu noqonin wax la dhisi karo la iskana dhaafi karo oo la waajib yeelo oo luqadda ku qoran yahay la adkeeyo. fakradiisa labaad waxaa la soo jeediyey in xubnaha
ka imaanaya labada gole la simo aadaa looga dooday 7 laga dhigo 9 laga dhigo waxaa kaloo la soo jeediyey in meesha guddoonku raacaya maahe meesha kalena xubnaha loo badiyo iyadana waa la soo jeediyey qodobka 96 ee awoodaha u gaarka aqalka shacabka faqrada koobaad xarafka F ee la xiriirta eedeynta madaxweynaha waxaa la soo jeediyey in lagu daro xilka qaadista oo la yiraahdo eedeynta iyo xilka qaadista oo aan eedeyn kaliya lagu simin mudanayaasha qaarkood ayaa soo jeediyey in hanaanka dastuurkii hore lagu noqdo taas oo aqalka shacabku curinayo eedeynta xilka qaadista madaxweynahana maxkamadda loo gudbiyo ugu dambeynna labada aqal ay xilka xayuubinta ka wada qayb qaataan aadaa loo soo jeediyey in nidaamka hore oo dastuurkii hore noogu qornaa aan laga guurin laakiin nidaamka cusubna wuxuu u dhigan yahay aqalka shacabka inay curiyaan eedeynta iyo xilka qaadista iyaga go'aan gaaraan aqalka sarena inuu meeshii maxkamadda ku jirtay uu ku jiro oo maxkamadda ay meesha ka baxdo marka in nidaamka hore loo laabto aadaa looga awoodaha u gaarka ah aqalka sare waxaa la soo jeediyey in lagu bilaabo qodob faqrad cusub oo u dhigan aqalka sare inuu matalo dowlad goboleedyada oo biriambalkaas loo sameeyo awoodaha u gaarka ah aqalka sare faqrada koobaad xarafka da oo u dhigan inuu ilaaliyo midnimada federaalka inuu ilaaliyo nidaamka federaalka iyo midnimada dalka in lagu koobo nidaamka federaalka oo midnimada qodobka ilaalinta midnimada lagu dhigo mabaadi'da guud ee baarlamaanku uu wada ilaalinayo lagu daro oo mabaadi'da guud ee baarlamaanka dhexeysa lagu daro aadaa loo soo jeediyey faqrada koobaad ee qodobka 97 xarafka G ee ansixinta iyo magacaabista danjirayaasha iyo taliyayaasha ciidanka waxaa la soo jeediyey in xukuumadda loo daayay magacaabistooda iyadoo dood badan laga keenay sidii suurtagal ku noqon karto in saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga oo qayb ka ah xukuumadda in labada aqal uu labada dhinac midna inta joogo maadaama safiirkiina wasaaradda khaarijiga ka tirsan yahay taliyaashuna wasaaradda gaashaandhigga ka tirsan yihiin marka iyadana waa in sidii suurtagal ku tahayna waa laga dooday laakiin aragtida dhehaysa sideedii hore loo daayo oo yaanu xukuumaddu cidday rabtaa u dhiibato ayaa aada loo taabtay isla waxaa kaloo la soo jeediyey in fakrad cusub lagu soo kordhiyo awoodaha aqalka sare waxaa kaloo la soo jeediyey in fakrad cusub lagu soo kordhiyo awoodaha aqalka sare oo u dhigan in aqalka sare dib u eegis ku samayn karo xilka qaadista hogaamiyaasha dowlad goboleedyada marka golaha wakiiladu xilka ka soo qaado oo aanu kama dambays noqon oo aqalka sare uu ama eedeynta iyo xilka qaadista uu meel mariyo ama uu u arko inay khalad tahay oo hanaan khaldan loo maray oo baaris kadib go-aanka ugu dambeeya uu aqalka sare u yeesho qodobka 99aad ee la xiriira korjoogteynta baarlamaanka waxaa la soo jeediyey in korjoogteynta labada aqal ay wadaagaan inkastoo ay jirtay doodaha aqalka shacabka keliya xukuumadda korjoogteyn kara laakiin haddana waxaa muuqata in aqalka sare aanu gudan karin waajibaadkiisa matalaadda dowlad goboleedyada haddaanu korjoogteyn ku lahayn xukuumadda marka kalsoonisiinta iyo kalsooni ka qaadista waa meeshooda laakiin waa inay baari karaan waana inay korjoogteyn ku lahaan karaan haddii kaleeto waxaa ku adkaanaysa aqalka sare inuu matalo matalaadiisa oo dowlad goboleedyada matalaya ayaa ku adkaan karta waxaa kaloo la soo jeediyey in baaritaanada iyo qodobka 99aad faqradiisa 5aad oo xeerinaya in baaritaanada loo magacaabo guddi wada jir ah labada aqal waxaa la soo jeediyey inay habboon tahay in guddiyada golayaasha u qaabilsan hadba umuurta markaas taagan inay kaga habboon tahay in guddi la dhiso oo aqalka shacabka ama aqalka sare wuxuu leeyahay
haddii arrintu amni tahay guddi amni uu leeyahay marka labada guddi amni ayaa ka wada shaqayn kara marka guddi in la ad hoc committees in la dhiso ayadana inay ka habboon tahay intaas ayaan xogayntuna su-aalaha intaas waa intii aan markaas inaan ku soo koobno ee ahayd maantay laakiin xoghaynta ayaa qabtay wax kasta oo lagu hadlay oo nuxurka hadda ka badan dhammaantoodna waa la tixgeli doonaa waana la nuxrin doonaa waxayna ka muuqan doontaa nuqulka ugu dambeeya ee halkaan la keeni doono waxaan rabaa inaan senator Siciid Cooke aan guddiga si uu cutubka 7 uu wax uga yiraahdo inaan halkaan gudoomiye hadda iga ogolaato soo jeediyo ama senator Siciid soo dhaw mudane gudoomiye waad mahadsan tahay mudanayaasha sharafta leh sida ka muuqata ajandaha maanta inoo hor yaalla ku saabsan qodobada cutubka 7 iyo qodobada cutubka 8 oo ka bilaabmaya qodobka 109 kuna dhammaanaya qodobka 129 labadan cutub waxay sidaan laba barnaamij oo aan kala maarmin cutubka 7 wuxuu ka hadlayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu ka kooban yahay 12 qodob cutubka kalena waa cutubka xukuumadda waa laba cutub oo isxuseeya haddaan kor maro qodobada cutubka 7 qodobka 109 oo dhigaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobka ku xiga oo dhigaya shuruudaha doorashooyinka xilka madaxweynaha doorashada xilka madaxweynaha doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dhaarta madaxweynaha waa 112 113 oo xasaanada madaxweynaha 114 oo awoodaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dhigaya 115 oo ah soo saarista digreetooyinka 116 oo ah muddada xilhaynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobka 117 eedaynta iyo maamuska xayuubinta qodobka 118 kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo qodobka u dambeeya cutubka 7 oo ah banaanaanta xilka madaxweynaha cutubka 8 waa 120 golaha wasiirada shuruudaha xubinnimada golaha wasiirada laga rabo xilwaayada xubnaha golaha wasiirada waajibaadka golaha wasiirada 124 oo awoodaha ra'iisul wasaaraha 125 oo ah ku-xigeenada ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha waajibaadka wasiirka wasiiru dawlaha iyo wasiir ku-xigeenada dhaarta golaha wasiirada xilka qaadista ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada iyo xukuumadda xilgaarsiinta oo qodobka ugu dambeeya maadaama labadan cutub ay isxuseeyaan oo aanay kala maarmin qodobada ay ka kooban yihiinna ay yihiin 22 qodob guddoonka sharafta leh waxaan ka codsanaynaa in xildhibaanka waqtiga uu aragtida dhiibanayo loo siyaadiyo si xildhibaanku si faahfaahsan aanu ciriiri u dareemin uga wada hadlo qodobada uu rabo markaa inuu aragtidiisa ka dhiibto mar walba xildhibaanna dabcan waxa isqora xildhibaano badan baa isqora marka waqtiguna waa inoo tashiilmayaa oo waa laga faa'iideysanayaa waqtiga maanta iyo maalinta ku xigtaba qofkuna wuxuu helayaa fursad uu ku bandhigi karo qodobada uu aragtidiisa ka dhiibanaya marka waxaan codsan lahaa in xildhibaanada loo ogolaado waqti ku filan oo ay ku dhiibtaan aragtidooda aad iyo aad baa u mahadsantihiin mar walba waxaan rabaa inaan xusuusiyo hal arrin oo muhiima dhalinyarada maxdarka qaada marka ay maxdarka qorayaan waxay ugu jecel yihiin inuu xildhibaanku iskortaago qodobka uu aragtida ka dhiibanayo oo uu dhaho 109
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya anigu aragtidaasaan qaba marka uu talaabayo qodob kalena uu iskor taago qodobka uu rabo inuu abbaaro taasi waxay sahlaysaa in dhalinyarada maxdarka inoo qabanaysaa ay si sahlan inoogu qaban karaan maxdarka hadda waxaa diyaara maxdarkii cutubkii shanaad waa diyaar iyo badiba cutubkii lixaad maxdarkii la qabtay waa diyaar maalmaha soo socda aanu idinla wadaagi doonaa dhammaan maxdaradii laga qabtay xildhibaanada ay dhiibteen xildhibaano badan baa aragtida dhiibtay intaana mar walba waan xusuusinaya aad iyo aad baa mahadsantihiin asalaamu calaykum xildhibaanada ha isqoreen markaan leeyahay xildhibaanada sida hadda la sheegahay waa wada xildhibaano horta baarlamaanka Soomaaliyeed ay wadihiin dadku sida xogayaha sheegayeen arrinta laga doodayo maadaama dastuur tahay waa run qofku markuu hadlaayo inuu wax kale ku daahin oo abaaro qodobka uu ka hadlaayana cadee qodob heelan ku jira qodob inuu sheego taasna idin ka codsanaynaa marka hal la bilaabo dood inuu aad u mahadsan xildhibaan jaamac askar qodobka 109 ilaa iyo 119 way doodo maanta waad mahadsantahay bismillaahir rahmaanir rahiim gudoomiye xildhibaanada sharafta leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sida la sheegay qodobka 109 soo maheen ilaa 19 intaasaan ku koobnaanaya intaasaan ku koobnaan waa intii laynoo soo diray dabcanna intaasaan usoo diyaar garoobay inaan ka hadlaba marka waxaan jeclaan lahaa guddoonka xildhibaanadu 109 ilaa 119 bay usoo diyaar garoobay inta badan saan filayo shuruudaha qodobka 110 shuruuduhu ka hadlayaa madaxweynaha soo saas maahan 110 xarafka ja waxa uu dhigayaa inuu dalka joogay 5 sano waxaan jeclaan lahaa in laga yareeyo waqtiga Soomaali fara badan oo aqoon-yahan oo muwaadiniin oo dalka wax badan gashaday baa dibadda ku maqan sida loo cabirayo qofku 5 sano dalka joogayna ma inuu yimid noqdayba ma inaanu imanba waxaan jeclaan lahaa in laga yareeyo 2 sano laga dhigo sida baarlamaanka qodobka 110 xarafka ka wuxuu ka hadlayaa madaxweynuhu hadduu ku guuleysto inuu ka tanaasulo jinsiyadda wixii shuruudaha laga dhigay shuruuddu waa inay ka horeysaa guusha xarafkan wuxuu ka hadlayaa markuu guuleystay kadib in la leeyahay ha tanaasulo ha la yidhaahdo intaan markuu murashaxnimada soo codsanayo waa inuu ka tanaasulaa doorashada madaxweynaha qodobka 111 faqradiisa saddexaad waxa uu dhigayaa murashaxa madaxweynaha inay soo jeediyaan 20 xildhibaan isla qodobka 111 faqradiisa afraad waxa ay sheegayaan inay soo jeedinayaan 3 xisbi qaran ee ugu codka badan laba wuxuu isqabanaya maaha maadaama dalkani uu aadayo xisbiyo badan finally ay soo baxayaan 3 xisbi qaran oo ku loolami doona awoodda dalka in loo daayo waa inay murashaxiin yihiin 3 xisbi qaran sabab loogu baahanayo xildhibaan inuu hadhow recommendation ka bixiyo murashax xisbi meesha ma taalo qodobka 11aad faqradiisa 6aad xarafka a wuxuu dhigayaa in murashaxa ku guuleysto 50% 51 murashax madaxweynaha ka hadlayna madaxweyne noqonayo tani waxay ka soo horjeedaa sidii dastuurku u qornaa oo ahayd 3 meelood oo 2 meelood wareegga koobaad wareegga labaad 3 meelood oo 2 luxuha 3 meelood oo 2 meelood iyo dastuur baa jiray kama ku dul shaqeynayna ma draft mu hayna dastuur dhaqan galaa dalkan ka jira
sidii hore in lagu celiyaa fiicnaan lahayd laanno qofka helaa 168 ba automatically noqonaya madaxweynaha dalka sidii hore ha lagu celiyo oo ayaan la taabanin baan ku talin lahaa sidii dastuurkii hore u qorna dastuurkeenu uu qoran yahay hadda dastuurkii 2012 la ansixiyey qodobka 111 faqradiisa labaad waxay ka hadlaysaa madaxweynaha inaan loo raaci doonin jaraa'imta iyo dembiyada uu galo markuu xukunka joogay haddaanay ku tacalluqin xuquuqul insaanka tani waxay ka soo horjeedaa shariicada islaamka mar walba halkan bayna maqaasid shariica islaamiya iyo shariica islaam baan ka hadalna dembi qof galayna waxaan leenahay yaan loo raacin haddaanay xuquuqul insaanka aanay ku tacalluqin waxaan jeclaan lahaa immunitygaas la siinayo madaxweynuhu markuu xilka banneeyo inay dhiiri gelinayso inuu dembiye galo intuu xilka joogo marka waa in loo raacaa wixii jaraa'imay waaweyn su'aantid madaxweynaha haddii uu galo intuu xilka joogo maxkamadda la saari karo markuu xilka ka digo qodobka 114 faqradiisa koowaad magacaabista ra-iisul wasaaraha ay ka hadlaysaa ra-iisul wasaaraha madaxweynuhu ma wuxuu iska magacaabaya miya xisbiyaa ku tartamaya xisbiba aqlabiyad ku heliya golaha shacabka waxaan rabnaa ra-iisul wasaare haysta aqlabiyadda golaha ansixinaya in halkan la keeno oo la ansixiyo madaxweynuhu wuxuu magacaabaya oo ra-iisul wasaare uu magacaabaya waa inay ku caddaataa halkan xisbiga hela aqlabiyadda golaha shacabka haddii kale xisbi soo tartamay siraaca siyaasiga soo galay ayaa hadhow la dhinac mari doona marka waa inay caddaataa in madaxweynuhu uu ka keenayo ra-iisul wasaaraha xisbiga aqlabiyadda ka hela golaha shacabka faqradda 114 xarafka waxaan sheegaa faqradda koowaad weeye 114 faqradda koowaad qodobka 114 faqradda saddexaad waxay ka hadlaysaa awoodaha madaxweynuhu in isugu yeeri karo doorasho xilligeedii laga soo hormariyey waynu ka doodnay taa waxaan taageerayaa in la samayn karo doorasho xilligeedii laga soo hormariyey marka shuruudo leedahay ra-iisul wasaaruhu markuu dhaco marka xisbiga xukuumadda soo dheysay uu waayo aqlabiyadda golaha shacabka marka ay suurtagal noqon weydo in la sameeyo coalition ama itilaaf xukuumiya xilli walba waqtigaan lagu xadidin sanadka koowaad bay dhici kartaa ka labaad bay dhici kartaa ka shanaad bay dhici kartaa markay ismidwaa uu ka dhaco golaha shacabka xukuumadda dhis kari waayo dariiq kaloo inoo banaani ma jiro oon ahayn early elections in la galo qodobka 114 faqradiisa shanaad waxay ka hadlaysaa magacaabista iyo edidda garsoorayaasha maxkamadda sare iyo maxkamadda dastuuriga madaxweynuhu ha magacaabo guddoomiyaha maxkamadda sare iyo maxkamadda dastuuriga markay u soo jeediyaan guddiga adeeg garsoorku laakiin erigoodu exit markay meesha ka baxayaan waa in la hor keenaa labada gole oo wada fadhiya taasun baa siin karta damaanad inay madax bannaan yihiin waa in la yidhaahdaa baarlamaanka soomaaliyeed baa ansixinaya xilka qaadista guddoomiyaha maxkamadda sare iyo maxkamadda dastuuriga waa haddaan rabno maxkamad iyo garsoor madax bannaan qodobka 115 faqradiisa koowaad iyo labaad intu waxay ka hadlayaan maraasiib uu soo saaray madaxweynuhu ama executive order nidaam baarlamaaniyaynu qaadanay nidaam riyaasiya dalkan muu qaadan haddana madaxweynuhu waxaynu siinay wareegtooyin inuu dalka ku maamuli karo iyadoo aysan jirin oo dastuurka meelna aysan kaga qornayn wareegtooyinkaa cidda burin karta maxkamadana awood looma siin sharci dejintana awood looma siin executive order ama wareegto ama amar noocaas oo kale ah marka madaxweynaha la siinayo dalalka siiyey waxay awood siiyeen hay-ado kale oo burin kara muxuu awaamirtiisa ay ka mid yihiin maxkamaduhu maraykanka waa aragteen
trump intuu soo saaray wareegto noocaas oo kale ah maxkamadii ay burinayso waxaan jeclaan lahaa in gebi ahaanba meesha laga saaro madaxweynuhu awood u leeyahay salaaxiyaadkiisa waxay ku cadyihiin dastuurkan salaaxiyaadkaas ayuu exercise garaynayaa oo fulinaya wareegtooyinkan iyo maraasiintan iyo waxaan wax kale nala gelayaan in meesha laga saaro ayaan ku talin lahaa qodobka 117 xilka xayuubinta madaxweynaha oo leeyahay golaha shacabka soo bilaabaya aqalka sare ay ku dhamaanaysaa markaynu eegno 117 faqradda koowaad ilaa faqradda saddexaad gebi ahaanba waxaan ku talin lahaa in dib loogu laabto sidii dastuurku dhigayay tan labada aqal inay ka wada xayuubiyaan maamuuska madaxweynaha golaha shacabkana ay kasoo bilaabanto ayaan ku talinaya dalalka qaarkood nigeria kasoo qaado labada gole sanadka iyo golaha shacabka nigeria ayaa wada fadhiista xilka xayuubinta sameeya south africa dalalka kale ee federaalka aqalka sare kama qayb galo national assemblyga south africa ka qaada inagu eegayna xaaladda aynu ku sugannahay waxaan ku talin lahaa in labada aqal ay arrintaa mas-uuliyadda wada qaadaan oo sidii hore ugu laabto ta u dambaysa waxa weeyaan ka hadlaya qodobka 19 faqradiisa saddexaad doorashada madaxweynaha hadduu meesha ka baxo madaxweynuhu in madaxweynaha kale lagu doorto 30 cisho gudahood buu tilmaamaya bal waxaad la eegtaan qodobka 119 faqradiisa lixaad isna wuxuu sheegay madaxweynuhu hadduu meesha ka baxo in 30 cisho lagu dooranayo isku waxbay sheegayaan labadaas 119 faqradda saddexaad 119 faqradda lixaad isku hal wax bay sheegayaan marka waxaan jeclaan lahaa in guddida dib u eegaysa dastuurka ay mid ku koobnaato wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xildhibaan maxamed haaruun ولا جورة بسم الله والصلاة والسلام على بسم الله xildhibaanada sharafta leh sida ajendaha lagu soo diray dooda si fiican loo dhageysanay xildhibaanada waqtan waan siinaynaa marka aniga waxaan maartay rabaa inaan ogeysiyo ajendaha la soo diray waa sida uu xildhibaan jaamac sheegay oo soo diyaar garoobeen xildhibaanada maadaama loo soo diray ajendaha wixii maalintaas laga doodayna ajendaha laguma soo daro maadaama ajendaha lagu soo diray labada qodob ka doodi kartiin taasaan rabaa inaan sheego waa mahadsantiin mudane guddoomiye aad baad u mahadsantahay fiiri nambarka idin sheegaya 109 ilaa 129 waaye saas inaad u sheegtiin aan rabaa maartay maadaama ajendaha lagu soo diray soo diyaar garoobeen si fiican ha loo dhageysto xildhibaanka masanatarka waxaan siinaynaa waqti ku filan 109 109 ilaa 29 waa idin furuntahay mudane guddoomiye aad baad mahadsantahay sibaad su dhaadhaafaysaan maalmahane inaad mar si wax kusoo wada heshiisaan baa yaro qurux badnayd guud ahaan xildhibaanada labada gole aad baan u salaamayaa intaanan bilaabin waxaan ka yaro horumarinayaa hadalkii guddoomiyaha guddiga dastuurka halka ka jeediyey waxaad moodaysay qaarkood inuu carabka u leexinayo siduu u jecel yahay dalkan dadka xildhibaanada ka noqonaya waa inay degaan ku yihin 2 sanaa lagu soo qoray laakiin waxaad moodaa inuu ka booday awoodihi aqalka sare si inuu maaragtay u duriyaad moodaa doodii ama soo bandhiga waxaad tidhaahdaan intaasaa loo batay ilaan aragtidu waa kala duwan hal meel kuma urursanay ama maaragtay leexinta aad leexinaysaan iyadoo maaragtay doodiiba weli dhammaanin naga dhaafa waa mahadsantiin marka intaa ka yimaado qodobka 110aad oo ka hadlaya shuruudaha xilka madaxweynaha muwaadin inuu yahay waxa da'diisu 40 tan iyo 60kii da 40 la sheegay dastuurkii maaragtay xukuumaddii 40 la sheegay waa run oo maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey waxyiga 40 jir isagoo ah laakiin meel hoggaankiina ku doorta 40 kuma jirto 40 hadduu wax tarayo Soomaaliya ishaas ay leedahay mana yeelateen dadkana dhalinyar bay u badan yihiin dadkiisa
marka da'dan aynu mar walba kor u qaadayno wadamada badan ee caalamka oo qaarkood awoodda waaweyn leh da 40 kuma xidhaan way ka wada yaryihiin 30 jir qaarkood hogaamiyalka qaarna da ka sii yar baa noqota marka 40 aynu mar walba kor u qaadayno dadkiina dhalinyaro badan yahay aynu ka dayno oo da ma taqaanaa wax badan ma soo kordhisa laakiin wax garad baa loo baahan yahay da uun looma baahna marka taa aan ka yimaado waxaad maaragtay isla maaragtay qodobka 110aad xarafkiisa ka intaan xarafka ka gelin g oo sheegay inuu 5 sano dalka joogo in la kordhiyaan anigu qabaa 10 sano inuu si rasmi u degan yahay maaha inuu yimid baxa waa inuu si rasmi 10 sano u dambeysay dalkan uu degan yahay duruuftiisa dhaqan dhaqaale iyo maaragtay marxaladiisa siyaasadda uu yahay qof waayo arag ah oo maaragtay si fiican u fahansan marka deganaanshaha inuu waajib ka dhigno weliba ayna odhan waa inuu deganaado waa inuu si rasmi ah qofku waa bixi karaa xaalada caafimaad buu bixi karaa booqashooyin kale u tegi karaa laakiin deegaankiisa rasmiga waa inuu dalka yahay xarafkiisa ka oo ka hadlaya marka uu xilka madaxweynenimada ku guuleystay inuu ka tanaasulo jinsiyadiisa waa inaynu ka hormarnaynu dhahnaa ka hor intaanu guddoomin shahaadada musharaxnimo waa inuu caddeeyo inuu ka tanaasulo jinsiyad waddan kale hadduu haysto doorashada madaxweynaha oo qodobka 111 faqradiisa labaad waa inuu maaragtay xildheeri noqdo musharaxa maaragtay faqradiisa lixaad baan jiraa boqolkiiba 51 helaa in wareeg oo sheegaysa madaxweynaha la doortay inuu 15 maalmood kula wareego xafiiska in la kordhiyaan qabaa sida wadamada dimuqraadiga inta badan u dhaqmaan muddo bila 30 maalmood waa inuu xafiiska kula wareega haddii maaragtay madaxweynihii baneynayay qudhiisu de wuxuu laga yaabaa inuu ku talagelay inuu sii joogo markaa 30 maalmood waa muddo yar markaa siduu xil wareejin rasmiya oo qurux badan loo diyaariyo waa in 30 maalmood laga dhigaa halka aad 15 ka tidhaahdeen qodobka 114aad oo awoodaha madaxweynaha xildhibaankii ugu horreeyaan la qabaa maaragtay 14 faqradiisa koowaad madaxweynuhu waa inuu ra-iisul wasaaraha ka keenayaa xisbiga aqlabiyadda hela waa inayna iska furnaan maadaama asxaab loo gudbay xisbiga aqlabiyadda hela ayaa noqonaya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweynuhu marka waa in lasoo xadidaa faqradiisa 12aad oo cafiska uu fidinayo madaxweynuhu ka hadlaysa inaynu ku darno inuu madaxweynuhu bixin karo cafis keli ah iyo mid wadana waxa kale oo madaxweynuhu inuu cafin karo aynu ku darno qof maaragtay eedaysanay maxkamadda ku socoto mararka qaarkood dalka waa iska in la isku haayo la rabaa sababo siyaasadeed ama bini'aadanimo iyadoo oo processkiisii maxkamadayntu dhammaan inuu madaxweynuhu interfesha ku samayn karo uu cafin karo
taana inaynu ku darnaan qabaa maaragtay qof maxkamadda xukuumadiisii ka gaadhay inuuna cafis uu madaxweynuhu fidin karin laakiin mararka qaarkood cafis maaragtay eedayn qof ku socota marxalado gaara isagoo madaxweynuhu xeerinayo inuu cafis u fidin karo ilaa waa la garan karaa qofka haddii dembiga lagu helo ciqaabta uu la kulmi karo marka haddii maaragtay uu qofka soo codsado uu isleeyahay waa laguga heli karaaba dembiga inuu iyadoo processkii maxkamaddu dhammayn madaxweynuhu cafis fidin karo iyadana ha lagu daro qodob maaragtay 14aad baan ku darnaa shuruudaha 3 ku koobnaayeen inuu madaxweynuhu toos u magacaawdo isagoo aan approval golayaasha uga baahnayn xilalka maaragtay sare ee madaxtooyada ama caawiyaashiisa maaragtay maadaama nidhi taliyaashii iyo danjirayaashii aqalka sare ha la mariyo macnaheedu waxay ka dhigan tahay madaxweynuhu shaqooyinkiisa inta badan xilalka uu magacaabay inay approval u baahan yihiin golayaasha markaa caawiyayaashiisa hadday la taliyaal yihiin hadday shaqaalaha sarsare madaxtooyada yihiin hadday madaxda amnigiisa yihiin kuwa inuu toos u magacaaban karo qodob ah inaynu ku darno sidoo kale qaybo ka mida miishanada dibadda inuu toos madaxweyne isagoo approval uga baahnayn golayaasha inuu isagana magacaabi karo inaynu ku darno qodobka 117aad oo ah maaragtay eedaynta maamuska xayuubinta madaxweynaha waxaad faqradiisa koowaad 3 xaraf A B C baad ku soo koobteen oo ah maaragtay khiyaano qaran ku xadgudub dastuurka iyo xeerarka jamhuuriyadda iyo xilgudasho la'aan waa inaynu ku darnaa madaxweynuhu waa bini aadan hadduu dembiye culus galo hadduu dil bareera galo hadduu kufsi galo dembiye culus high crimes waa inaan ku darnaa hadduu madaxweynuhu galo waa maaragtay maamuska xayuubin baa lagu sameeyaa waana la maxkamadeyn karaa midda kale xasanadana waad kaga hadashin inaan maaragtay la maxkamadeyn karin xilka aye haddii uu dembiye culus galo waa madaxweyne miyir qaba unbay malaa ka fikirteen mid aan miyir qabinna waa ina soo mari karaa marka ama mid aan maaragtay miyir qabin odhan hadduu miyir qabin sharciyada xilka ka qaaday laakiin mid aan maaragtay mararka qaarkood u dhaqmayn si aan caadi hayna waa ina soo mari karaa marka hadduu dembiye culus galo ayaad iyadana inaad ku dartaan baan jecelahay faqradiisa labaad xarafkiisa si waxaad tidhahdeen daacad u noqosho quwado shisheeye dalal shisheeye quwad ma cadda dalal shisheeye haddii uu daacad u noqdo gacan siiyo ama basaas u noqdo waa inuu iyadana maaragtay maamuska xayuubin lagu samayn karaa qodobka 119 oo ka hadlaya sababaha marka uu maaragtay banaanaanta xilka madaxweynaha geeri iscasilaad qoraal oo uu gudbiyo gudoomiyaha aqalka sare waa aad baad u soo qurxiseen maadaama gudoomiyaha golaha shacabka uu noqonayo kursimaha waanu isagu duban una daangeysan ay maaragtay ka madax banaataan markaa iscasilaadiisa inuu u gudbiyo maaragtay gudoomiyaha aqalka sare maxkamaduna ay ku dhawaaqdo banaanaanta maaragtay xilkaasi marka awoodaha madaxweynaha haddaan dib ugu yaro noqdo xildhibaankii iga horreeyeyna uu ka hadlaya xilka qaadista iyo maaragtay magacaabidda guddoomiyeyaasha maxkamadaha dastuuriga iyo maxkamadda sare inkastoon qaba in la isku daro labadaa waa inuu golayaasha durufal ka helaa cadaalad haddii la helo garsoorku waxaa la rabaa mucaarad iyo muxaafidba inuu cadaalad falo markay dastuur timaadana siyaasad baa soo gelaysa waxyaaba mararka qaarkood aan ka farxin madaxweynaha xilka haya ama xukuumaddaas ay imanaysa markaa waa inuu approval helaa markuu xilka ka qaadayo waa soo jeedinaya laakiin labada gole inay cod aqlabiyada ay ku ansixiyaan xilka qaadida gudoomiyaha maxkamadda dastuurka iyo maxkamadda sare waxaad banaanaanta waxaad tidhahdeen muddo xarafkiis qodobka 19aad faqradda 3aad in haddii xilka madaxweynuhu maaragtay banaanaado in muddo 30 maalmood gudahood lagu soo doorto 30 maalmood aad buu yarta 3 xudud baynu muddo 30 maalmood ku dhow wadnaa marka in la kordhiyo oo 60 maalmood laga dhigo ayaan maaragtay talahaan soo jeedinayaa haddii jagada madaxweynenimadu banaanaato si hayaa xilka madaxweynaha inuu gudoomiyaha golaha shacabka waxaad moodaa awoodihii sidaa usoo dhigteen aad bay u qurxan yihiin laakiin
dee guddoomiyihiisii hayaha ahaa wuxuu rabaa inuu dalkii maamulo waa markay bannaanaatay sii hayntii baa laba kale ah marna madaxweynihii waa joogaa oo safar buu u baxay ama howlo kaloo gaaraha ku soo baxay marna madaxweynihii ama geeriha ku timaado ama iscasilaad ha ku timaado xilkii baa si rasmiya u bannaan markuu xilku bannaanaado labadaasi inay inoo kala duwanaato marka uu noqdo dee guddoomiyihii markaasi hayaa madaxweynaha nin dee maamulkii dalku gacantiisa ugu jiro marka inaad ku dartaan maaragtay inuu samayn karo shaqo ka joojin haddii aad tirahdeen waxna ma magacaabi karo waxna ma caydhin karo dee cidba ka amar qaadan mayso marka ugu yaraan inuu shaqo joojin samayn karo inuu ka jawaabi karo maaragtay xaaladaha degdega ah ee dadka soo foor saara maaragtay inuu ka jawaabi karo inuu maaragtay waxyaabo awoodo noocaasa laakiin haddaad tirahdaan halkiisuu joogaya doorasho inuu qabtana waa laga rabaa dee ciidamo kama amar qaadanayse waa ninaan waxna caydhin karin waxna magacaabi karin waxna shaqo ka joojin karin haddana shaqo laga rabo isma yeelanayso marka awoodahaas maaragtay aynu kala qaadno marna waa kusime madaxweyne maaragtay dalkii jooga oo shaqadiisii wata laakiin howlo caafimaad u maqan ama howlo safar u maqan marna waa jago madaxweynenimo bannaanaatay 60 maalmood ha lagu koobo awoodaha maamul ee uu yeelan karana waxaa lagu kordhiyo oo sidan yaan lagaga tegin guddoomiyuhu uu sii wado ilaa 129 ku dara inta badan maan soo akhrin ka 129 laakiin waxaa ishayda ku dhacaysay da'da golaha wasiirada isagana 40 laga dhigay madaxweynaha 40 maaragtay wasiiradii 40 dee dalka halka loo wada garmaayo 75% waa dhalinyaro dadkii waaweynaana hore loo soo tijaabiyo guul iyo maaragtay waxba may keenin dhalinyartii ay hagradeen ay inta badan soo hortaagnaayeen ee dal qurux badan ay u dhisi waayeen haddana in la yidhaahdo fursad ma haysataan ilaa intaan anagu nool nahay waa maaragtay waa masiibo markaa da'daas inaan marnaba lagu xidhin ilaa 25 ma 20 waa lagu celin karaa in qofku wasiir ku noqon karo hadduu aqoonteedii kartideedii uu leeyahay leadershipka waddankana dee muddo in lasoo diyaariyo u baahan yahay laakiin haddii maalin kasta 40 jir uu leadership ku noqonayo cimriga intuu haystaana dee 60 meeyaa lagu qiyaasaa biniaadamkii wax yar uu ku jiro kii kale aan 40 soo gaarin cidba waxba u diran waa maaragtay gaab baa imanaya marka leadershipka muddo u baahan yahay lasoo diyaariyo marka da'da in iyadana laga saaro faqrad kale maaragtay iyaduna iigu jirtay oo ah inuu ra'iisul wasaaruhu magacaabo caydhina karo ra'iisul wasaare ku-xigeenka ama ku-xigeenada ra'iisul wasaare ku-xigeenka ama ku-xigeenada iyo wasiirada kala bedelaadaan waxaan qabaanu madaxweynuhu siduu u magacaabayo maaragtay ra'iisul wasaaraha inuu ku-xigeenkana isagana magacaabo ra'iisul wasaaruhuna wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka u magacaabayo hadhow maaragtay bedelaaddooduna in golaha maaragtay si lamida ra'iisul wasaaraha ay isla baxaan intaasaan ku soo koobilaa aada iyo aad baad mahadsantahay senator cabdi cismaan majiin mahadsanid guddoomiye mudanayaasha sharafta leh labada aqal labada guddi oo ka soo shaqeeya dastuurka marti sharafka habdhowrayaasha ciidamada qalabka sida oo ammaankeena sugaya iyo warbaahinta waa idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudanayaal intaanan bilaabin doodayda cutubka 7 iyo 8 waxaan rabaa wax yar oo mulaxadaada inaan ka iraahdo chapterkii hore ka horreeyey mudanayaashii sharafta leh waxaad moodaa
labada gole aynu nahay inaynu isku cabirayno golo waliba sida isagu uu yahay. waxaan leeyahay labada gole waa laba gole shirada adduunka ka jira, taasaan ku abalay garayno. waa mahadsantihiin. markaan gudagalo doodayda qodobka 110aad farqadiisa ka kay musharaxa haysta jinsiyad dal kale uu caddeeyo ka noqoshada jinsiyadda haddii uu ku guulaysto xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. horta dalkan waa dual citizen, waxaa la ogol yahay qofku inuu haysto laba jinsiyood, laba dhalasho inuu haysto yaa la ogol yahay. marka uma jeedo sabab ku khasbaysa jinsiyaddii labaad uu haystay inuu ka noqdo, uma jeedo. waxaan qabaa arrintaas in meesha laga saaro oo muwaadinku labada jinsiyada uu haysto oo labadoodaba uu haysan karo. isla qodobka 110aad farqadiisa afraad musharaxa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa musharaxnimadiisa soo jeedin kara saddexda baa lagu qoray markaas saddexda xisbi siyaasadeed ee ka mid ah xisbiyada. horta saddex xisbi qaran, xisbiyada waxaan filayaa inay ahaayeen xisbigii 10% ururkii 10% ku ka hela doorashooyinka inuu u gudbaayo xisbi qaran. marka ma filayo inay tahay saddex xisbi inay ku jaan go'aantay oo saddex xisbi kaliya tahay. doorashada saddex baa heli karta, afar baa heli karta, ka badan baa heli karta. taasna waxaan leeyahay iyadana dib ha loogu laqo. qodobka 112aad oo ah dhaarta madaxweynaha, waxaan qabaa dhaartan madaxweynuhu inay koobnaato, macnaheeduna uu aad u qeexan yahay. waxaan qabaa labadan markaan isu barbar dhigay, dhaartii hore iyo tan dambe markaan isu barbar dhigay, waxaan qabaa in dhaartii hore lagu celiyo iyada ka kooban in lagu celiyaan qabaa. sababta waxa weeye dhaartu waxay u baahan tahay wax yar oo kooban oo aan waqti badan qaadan. marka dhaartii hore in lagu celiyaan qabaa. intaa markaan kaga baxo, waxaa la yidhi musharaxnimada isla qodobkaas 110aad musharaxnimada saddexda meelo waxaa weeye musharaxa waxaa la yidhi musharaxa musharaxiintu markii ay tartamaan labada musharax oo ugu horeeya ayaa ku noqonaya midka labaad. waxaan qabaa midka labaad sidii hore in lagu celiyo afarta musharax oo ugu sarreeya inay aadaan kan labaad
kabacdina sidii caadigaadi u socoto haddii kala bixi waayeen ka saddexaad sababtu waxa weeye mararka qaarkood waxaa dhaca oo jira musharaxa saddexaad inuu noqdo ka guulaystaha meesha inagu hadda aynu leenahay labada musharax ugu koreeya keliya ha aadeen rawnka labaad taas waxaan qabaa in steedi hore lagu celiyo oo ah 4 musharax oo ugu sarreysa inay roodka labaad aado waa mahadsantiin xildhibaan sharafta leh salaadan soo dukunaynaa waan qadaynaynaa waa isku soo laabanaynaa